بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إلهي سبحانه وتعالى horta meesha joogaha igu xifdiyo waayo gaadhigaas ad arkaysaan halkaas suuman igu soo sameeyay gaadhigaas laba nin ka soo dageen jidkaas aysan uga leexdeen dhirtan aan dhabarka ka taaganahay xaa ka galeen meeshana waa wada sabuul ama xasiid xaafadaydu xagaas iga xigta ana dhinacaasan ka soo lugay adigu meel ilaa isku geyskeys waxa laga yaabaa 7 kiiloomitir ama 6 kiiloomitir iyo waxay noqoto aan lugeynay marka kala waxba isweydiinayay qofka bini'aadamka markuu kaligi meel soconayo wuu xisaabtamaya ilaahayna hayga xiftiyo kulay nimankan meesha jooga laba nin anagana meeshan duurkan jooga naag xijaab weyn oo meeshan kaligeed maraysa waa iska adag tahay ilaahay igu xiftiyo allahumma aamin ilaahay baa igu filan anu halkan maraya waxa igu soo dhacday waad arkaysan meeshan waxa ka baxaya waa xasiid ama sabuul qolo walba si u fahmayso dadkii anagu aan wadankooda u imaanay oo qaxootiga ku ahayn dhulkooda san u beeranayo oo wax uga la soo baxay sabuulkani ma aha mid Afrika la geeyo oo dadka qaxootiyada ah la siiyo ma aha sheekadu waa waxay dadkani quutaanayo ku nool yihiin cuntada dhulkooda kala soo baxaya baha la dhaho grease ina la dhahan jecelahay laga sameeyo soor camal ka samaysan kartaa keeqinka lagu daraa rootiga laga sameeyo wax walba laga sameeyo okay saddex arrimood ayaan rabaa meeshan inaan kaga hadlo ama saddex fariimood aan dhihi karaa oo aan halkan ka diraayo please fariinta ugu horeysa waxay tahay dadka Soomaaliyeed dalkii hooyo jooga oo intay xataa kuwii beeraha qodanaya beerahoodii ilaaween bariis soo gadanaya bariiskana macnihiisa aan fahansanayn biliis codkaygan maanta dadka baadiya dal iyo dibad meesha la joogo dadku telefoonay wada isticmaalaan adduunku sidii hore ma aha walaalayaalow eedayaalow habaryaryalow adeerayaalow ilmahan eedadii habartow hayow biliis dhulkiina wax idin ka iniga soo baxay wax ka fiican ma jireen waxa horta cuntada dhulkiina ka soo baxaysa cuna sababtoo qofka bini'aadanka waxa ugu horeeyo ay ila fiican in laga taliyo caafimaadkiisa waxaana la dhahaa calashan xanuun walba iyo cudur walba hortag buu leeyahay kadib tag ma lahayn maanta waxa dadku calool fadhigu ugu wada dhacay gastriga ugu dhacay maanta hadii la ina soo weeraro dalkeena gabar Soomaaliyeed inta qori qaatay ku hortagaysa ay malaha cadow yarta halkaas dabada ruux ay maxadan wada qaylinayaan oo cid walba ka faa'iideysanaysa marka waxaan niga codsanayaa fadlan inaan mawduuca ka baxo ma rabo in aad cuntada dhulkiina ka soo baxayso dhulkiina aad beerataan oo dhulkiina cadowga ka ceshataan oo midowdaan oo maxay haydaanay ii sheeg cuntada dhulkiina ka soo baxaysa aad cuntaan ama haruur beerta ama beerta maxaa la dhahaa beerta ii sheegeen wax walba beerta calashan wax walba maanta ilaahay dhulkeena waa dhul uu nimceeyay wax walba way ka soo baxayaan baabuur ay soo kacdaa dad qaylada xooga yara maqli weydaan baabuur meesha ka soo baxayaan malana guuxiisa maqlaya marka Soomaaliyeey baabuur meesha ka soo baxaya wakaas marka Soomaaliyeey waxaan ilaahay walaalayaalow dhulka wixii dhulkiina ka soo baxay horta cuna bariiska la idin keenay waa plastic oo plastic baa laga soo sameeyay burka la idin keenay waa cudur ama daqiiqda saad u fahmaysaan wax caafimaad qaba oo maanta aad cuntaan la idin keenay walaalayaal ma jiro haddii aad inuu mustaqbal leedihiin Soomaaliyeey iska ilaaliyo waxyaabaad cunaysaan afkiina gelinaysaan ilaahay baa arsaqa bixiyo ama baadiye joog ama magaalo joog ma fahmaysaan taasi waa iga talo okay talada labaad ee kalendaray waxay tahay waa dawladda Soomaaliyeed I don't know dawladda Soomaaliyeed inay codkaygana gaaray Allahu a'lam laakiin fadlan qof kasto maqal haddii ii sii shaar gareeyo ay gaarsiin kartaan dawladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay anu hooyo Soomaaliyeed ah ilmahan la imaaday wadankan la imaaday xaalkooda ilaahay baa og yaa naftayda halkaas duurka aan la lugaynaya ma aragtaan magaalo iima dhaw duurkaas aan lugaynaya qofku markuu calaashan manici naftayda ilaahay baan ku xiranahay oo qof depression ku dhacay ama stress ku dhacay ma ihi laakiin waxyaabo badan aan ka fikiraya yaa waxa aan halkaas calaashan la maraayo oo uga fikirayo wax weyn inaan hawo qaato oo nafiso oo aan calaashan hadan iskuul ka soo baxay aan maskaxayda isfurfuro waayo qofku waxyaabo badan ka furfurmi karaa markuu familigiisu ag joogo ama wax walba dhinac walba ay wax ka laakiin adduunyadu waa sagal horta ma dhameystirna taas mawduucaas ayaan hadalkaygu iga qaldamin aan kor uga baxo please dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dhalinyarada iyadii wadankii joogtay ma noo nabad qabaan oo waad u jeedaan waxyaabaha aan arkayno waxyaabaha halkan Yurubta aan ilmaheena kala cararayneen lahayn ilmihi waasan laga dhigayaa halkii ugu horeeyaba hooyada istiraamaanta ilmaha la carar
oo aad u jeedaan dalkayagii baad arkaysaan cadowga halaloobsanaya oo meel walba qabiilkii iyo waxaan kala hormarinay diintii ilaahay subxaana watacaala ina siiya suubanayd inan yaroo ilaa 30 sano dhowr iyo 30 sano oo Soomaali dagal ka socday qabiil lagu kor akhrinayay oo aaduu rabo si fiican wax u baranini dee berri mooryaan buu noqonaya hooyadii si dhasho dib ugu noqonaya marka ilaahay inta laga baqo maanta dad waxa hadda waraa soo dhageysanay wiilka la dhaho Cabdiladiif aan ku xidhanahay oo aan dhageysanayay war ay soo galiyeen isaga ninka la is wareysanayeen علشان dadkeena waxa ka dhaadhacsan Itoobiya ayada gudaheeda dagaal ka socda oo Soomaaliya maanta maxay haydaanay ujeedo ay ku qabsato iyo awood ay ku qabsato ma lihin horta Itoobiya ninka yaqaan ama siyaasi ha ahaado ama siyaasuna ninkii yaqaan ba fahmi kara khidadeedii waxay wadato talabaad kale su'aashani weydiiyay waxay tahay Soomaaliya maanta ilaa raas casir ilaa raas kambooni meeshay rabtaba ha ahaatee ma Soomaali ba ku badan mise Ethiopian ba ku badan wadanka dadka inaga badan maanta waa ayo warku idin dhex joogay ayaa soo hadlayo idin dhahayo annaka maxay daanay ii sheegeen dalkana qabsanaa rabnaa dadka u talin doonana adiga damiir laawo marka dalkaaga loo talinayo oo haddana u daba dhaqaysid nin awowga iyo adeerka iyo ka ab waliga cadowtinimo kala soo dhaxaysay oo waliba isagoo calooshaadii ku jira ninka dhahayayaan hore dhowr bilood ka hor ay ahayd isagoo boosaasan jooga TikTok inta soo qabsaday dhahayay wadankan inaan qabsanaan anagu iimaanay dan kale ma lihin asagoo waliba ku dhex jooga gurigaagii jooga oo dhahayso waa miskiina marka qof suuqa oo dhawar naga leexana ku dhahaya maxay daan ii sheegeen asdahaysan waa miskiina naga leexo ka leexda calashan la taabsanin qofka walaalkiin oo Soomaaliga ana aad qabiil iyo uga hadadaleedin ugu ordaysaan Soomaaliya miyaad waalantiin horta mise waad fayowdiin bal isweydiiya talabaad kale Soomaaliya hadayna isdaba qabanin oo dalkiina wax ka qabanin oo dadkiina wax ka qabanin oo diintiina wax ka qabanin suma wallahi waxa idin dambeynaysa Falastiin ka socdo ilaah baan ku dhaartay Falastiin talabaad noqonaysa mustaqbalka hadaan yac wax iska dhihin Soomaali hal meel ay ka nooshaan oo u fiirsado halkaasna waxa weeyaan sadaqada qof dhibaataysan haday arkaan way u kacaan laakiin iyagoo waliba iyadoo in kastoo la dhahayo qofkaas xataa qolamaatay war qabiil lagu bixiyo sadaqada ilaahay dartiisa lagu bixiya hal la dhaafo dadka qofkii wax la siinay sadaqada soo kale dhiga labada gacmood ay soogaaneen ilaahay dartii qofka wax siinaysa u siiya laakiin halka kaliya wali ka sii nooshan waa halkaas marka ilaahay waxaan ka bareeyaa horta inuu dalkeena noo nabdeeyo halkaas inta soo gudbaya ma ku sii raagayo tasaddexaadeen ka hadlay wax weeyaan war Soomaali ragga qof kasta oo rag oo fiidiyaygan dhageysanayo si shar garay way taladan si khaas ah ugu socotaa sabab warkiina sheekha iyo kiina caafimaad maxay aan calashan aan sheekha ahayn ya intiina caafimaad qabtay dadku ma wada fayoobe bal intii isku tuhmaysa inay caafimaad qabtay ragga intooda kale hal quraan saara biliis waayo waxaan u jeedaa raggii Soomaaliyeed oo meeshay hore u socon lahaayeen oo meeshay u dhihi lahaayeen dalkeena maxaan u qabanaa oo halkeen wax ka bilownaa sideen gabdhaheena aan u badbaadsanaa sideen hablaheena sharaftooda u badbaadsanaa sideen u wacyi gelinaa bulshada waxyaabahan hablahan TikTok ku soo badanay dumarkan isqaawinaya dumarkan wax walba soo bandhigaya dumarkan wixii calashan guriga ku asturnaan jiray banaanka wada keenaya sideen ula talina intii layna dhihi lahaa aan ka sii socdo meeshan baabuur badan soo socotay kaliya meesha marka iyagii baaba raggii Soomaaliyeed ba cid walba uga soo horeynaya hablahoodii oo caynaya warheede markaan yaraa ayeeyday waxay ku mahmaahi jirtay geenyada nin kale buraanburida ku dhifto buraanburida waxa la dhahaa beeraha marka san loo qodayo kala dhagax maxaa la dhahaa carrada duubanta carra kuus la dhahaa buraanburi la dhahaa okay geenyada nin kale hidayaco oo buraanburida ku dhifto cadawguna dhagaxa uu hoos geliyaa ku dhifta marka walaalayaal waxaan naga codsanayaa Soomaali weynay ragow inaad war hooyo waatii ku dhashay war hooyo waatii aad u dhaxday oo awlaadaada dhashay war hooyo waata aad la dhalatay waata aad dhalaysid war hablaha ka fariista oo hablihiina wax u sheega oo hablihiina ragow Soomaaliyeed rag idin ka fiican ma jiraan ya والله وبالله وتالله hablaha Soomaaliyeed
hadday ajaanib guursadaan iyo hadday jinni guursadaan nin Soomaaliya ninka nasab si fiican wallaahi ma jirto taasana idin qaraayo marka walaalayaalow hooyayaalow adeerayaalow fadlan dalkeennii iyo dadkeennii oo dumarka ah u badan iyo makasteennii ilmaheennii aan dhalay iyo diinteennii ayna israacin ilaahay subxaanahu wa tacaala yawm alqiyaama inagu inagala xisaabtamaya waxaad arkaysaa ilmo yar inan yar oo hadda soo kacay oo maxaydanay wax kale lagu sheegayo nin aabihii la egi intuu hooyadii furay ayuu maalintuu hooyadii furay buu ilmihiina furay waxaad arkaysaa ilmo yar 14 jir 15 jir ah oo meelaha social media la soo galinayo oo oday aabihiisii ka dayacay la egi wuxuu rabo ka samaysanayo yaa ninka Soomaaliyeedow su'aashan ku weydiinay waxay tahay yaa ilmaha inankaaga shalay dhashay ee diinta macaan ku dhashay gabadh Soomaaliyeed qurux badan caraf badan yaa cilaansanaysa qabaysanaysa cadayanaysa lagu siiyo lagu meheriyo diinta islaamka lagu meheriyo inankii ay ku dhashay eed magaca quruxda badan u bixisay intaad u wanqashay maxamed saalax cabdullaahi aad u bixisay yaa calafku dhamaan karaaye maalintaad hooyadii kala tagteen way u dayacaysaa damiirkaagu siduu noqonayaa inankaaga yareed ka tagtay nin adigoo kale markuu wuxuu raba ka samaysanayo maskaxdiisa la bedelayo ka ugu fudud daroogaa loo dhiibayaa oon wax kale lagu samaynin marka yaa la weydiinayaa yawmal qiyaama ma dhimanayna miya halkee loo socdaa ma dhimanayna miya aakhirana ma sugaysa miya yaa annaka berri ka maaliyaana aasi doono war wallaahi oo billaahi oo tallaahi maalin aan baarliin tegay waxaan arkay wiil Soomaali ah yaa oo inan yar oo aan ku qiyaasay inamada 19 hadduu ugu badnaado korboodo 21 yaa oo afka xamuuraday u marsantahay ma libis qof walba sidoo fahmayo gacmaha wuxuu ii marsaday waxa cijiyaha wuxuu marsaday bahasha kalarka oo roosaha ama binki afka sidoo kale boorsa binkana way isita anaa naxaynina garabka haysto intuu saa ii eego huruufay waliba saxanju calashanaya wallaahi oo billahi tallaahi naxdin kaadi ayga iman gaartaan ku dhahay jidka dhexdiisa naxdin darteed subxaanallahi wa amma yasifun marka yaa noo maqan war dalkeennii cadow iyo burbur yaa ku socda iyo inaa la kala boobaayo siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya calashan isku sheegay siyaasiyiinta ama wasiir haw ama baarlamaan haw ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne haw yaa berri miyaan dhimanaynin miyaynan xisaabi ku oolin ummad baad u dhaaratay ama dal ha joogaan ama dibad ha joogaan meel kasta ku silcaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u malaynayaa mawduucayga waan ka baxay waan taraaraxayga raalli ahaada allahna hanuuniyo hablaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay kama maqna meesha taladay ku jiraan hooyaa tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hooyo ababa way ka dhaxaysaa hadalkan waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadiyaduu bixiyo wax ugu qaalisan awlaadda ilaahay shalay hooyo kugu arsaaqay adaa ninka ka daran oo fooshay oo 9 bilood caloosha ku siday yaa adaa naas siiyay ilmahaaga wiilkan Soomaaliyeed walaalkaaga oo isku dalkaya isku diinta tihiin calaf ku dhamaan karaa balse furiinkan badan iyo kala tagan badan maxaydan hal iska ilaali hal iska yareeyo war anigu waxaan arkay wallaahi ajaanib intay kala tagaan yaa si ayna ilmahooda maskaxdooda dhaamisho gaarin hooyadii aabihii iyagoo kala tago nin iyo naag isku hayn ay ilmahooda dartood guri ugu wada nooli ma fahmaysaan ilmahooda iyo hooyadii aabihii ilmaha dartood si ayna ilmaha maskaxdooda dhaamisho gaarin maskaxiyan wuxuu noqon ilmahaas oo hooyadii aabba been iskugu faraxsan oo arkayaan hooyadii aabba been iskugu farxayaan ilmaha darteed guri baa lagu wada nooli ma dadkaasaad ka liidataan yaa korkaad gabadhan kala tagtaan intaad ka dudaysid mid kale hoodana markiiba raadsanaysid no war kuwan horta ilaahay kugu eegayaa hadiyadan ilaahay ku siiyay tukala ku qaalisanta kale kuma dhalaysa inaan kala Soomaaliyeed hal goynin war horta tan caruurta la kori ku samir na adiguna istuskan iyo xishooda wax isku fala annaka hooyooyinkan way soo xishoon jiray hadhiina hadda wadan casri ah la maraya 2024 la maraya 2024 diinta islaamka wadanka kama guurin dad islaam aan nahay
hablo hala xishoodo wallaahi hablo badan oo waxaan arkayay hadda shalay rag talabaad kale hooyada waxaan arkayay maanta wiil cimraan lakaha media please walaalo waxyaabaha faaxishooyinka sababa علشان bulshada u soo dhigaysan irsiq wax kale ka raadiyo iska daaya ya anu mar rabeen cidna ku fogaaday cidna inaan fadaxay laakiin huda amuunu afka laga dhuuqay xasbi allah wa ni'mal wakiil afkayga inay soo marto xataa wisuus igu tahay wallah huda iyo hablaha kale lamida waxaan leeyahay inaan ka yara dhasheen inaan ka adashay birika maalin rag qeyrkii lama kaftan karo way waxa social media la soo galiyay waa wax meel idin yaalo idin seef karaysa birika maalin inaan kaaga yar wad ku curatay inamada qeyrkii waxa tusayaan fiir hooyada afka laga dhuuqay ma la hadli kara marka miyaana damiir lahayn damiirkii xaqo idin kaga dhacay waranu gabar Soomaaliyeedna wallahi isma faananayo hadii jidkaana soconaya warqadiga ka dhacdo marka ugu horeysa waxa ugu horeysan ka fikirayo waxa weeyaan naag xijaaban ba halka jidka qashin ku tuurtay marka labaadna waxaan ka fikiray waxa weeyaan way madoobay Afrikaan ay ahayd marka saddexaad waxaan si ilaaliyo waxa weeyaan Soomaaliyeed bay ahayd ma fahmaysaan marka hablo علشان عندنا وجوهين ما ينو ضوضان كلا قاضينا ما نفتن يرحلي لو سو جيرن ما اوغين وردلكينا iyo diinteena ma aan ilaashano iyo xijaabkeena iyo sharafteena hadaa lacala wax sameeynaysan oonad ka maarmin dhagii ilaahay waaniyaan waan samee walaalayaal oo qarsada hanoo soo bandhigina social media hana soo galinina si ilmihiin iyo ilmaha kale ba indhahooda iyo maskaxdooda iyo dhagooda u dhowrtaan please intaas aan iga codsanaya idinkan allahana idin asturo يا هذا اللي وضي معايا فيديو وين بديي وان السلام يا سومالي وينه ملك سو جوجتان الله يدين حفتيو اسكو سو دعينو دلكينا يا ددكينا يا دينتينا ilaahay baa u maqan kuwa gacmaha isqabsada Allah naga dhigo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته